السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada macadka tababarada tiknoolajiyada ee Bondo. Wali waxaan soo socda koorsada computer hardware ee plus. Maantana waxaan baranaynaa laptop assembling oo ah sida laptopka loo furfurayo loo xiraayo. Laptopka waa ku duwan yahay sida desktopka loo furaayo loo xiraayo. Laptopyo waxaa jiro batterigooda external oo yahay sida laptopkan oo kale iyo mid internal oo yahay. midka internalka waa inaad qaybtan dambe furtaa laakiin kan externalka halka banaanka stepka koowaad waxa muhiim ah in aad process ka raacdo hadaad process ka raacin hadhow waxa imaanayso inaad jibiso ama ay graphic ka gaarto marka ugu horeyso wuxuu leeyahay battery wax loo yaqaano battery latch waa kuwan marka waxa loo baahan yahay in aad qaybahaasi aad horta ka bixiso logga marka hore waxa sameeynina ada sidaan oo kale markuu yahay waa log way inaad saas log ugu bixisaa sidoo kale halkaan aad jiido batteriga soo bixisa habkaas waxaan ku baranay sidee batteriga loo soo bixinayo hadii lagu rabo batteriga sidee loogu xiraaya marka hore waxa fiirinaysaa qaybtan oo connectorka batteriga oo ku xirmay laptopka sidoo kalena waa inaad mar walba ku xisaabtantaa halkan hadii sidaan oo kale u yahay oo log uu ku jiro way adag tahay in hadhow batteriga soo geliso sidaan hadda ma soo galaa sababtoo ah halkan waa in marka hore aad qaybtan sidaas u furtaa kadibna sidaas u soo gelisaa markaas aad soo gelisid kadib marka log ina gelisid ee laga baahan soo hadda batteriga ma baxayo sidaas ayuu ku xiran yahay marka waa ina mar walba labadaas qayb ku xisaabto marka bixinaysidna asigoo log ku jiro oo xiran ina bixiso maahan mar walba waa inaad marka hore halka qaybtan sidaas aad ugu furtaa halkaan sidaas aad u jiidaa kadibna aad soo bixisaa batteriga waxaa la baran hadda sidee batteriga loogu xirayo laptopka iyo sidee batteriga loogu furayo